Waaberi waa degmo xadaarad iyo ilbaxnimo isku darsatay. Dhul ahaan waxaa la buddhigay 1957 waxaana bixiyay duqii magaalada oo la dhihi jiray Ancelotti kaas oo dhalasho ahaan ka soo jeeda wadanka Talyaaniga. Degmada waxaa ku yaala in ka badan 25 masjid, hal saldhig iyo 2 MCH oo hooyada iyo dhallaanka lagu daweeyo oo degmada caan ay ku tahay. Sanadkii 1972 ayaa asalka calanka iyo degmada la yigleelay sida laga qoray qaar ka mid ah waayajooga Soomaalida. Degmaduna waxa ay leedahay goobo taariikhi ah oo caan ah. Waaberi waxa ay ka kooban tahay 4 wax oo sohdin wadaag leh 6 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir sida Xamar Jajab, Hodan, Howlwadaag, Xamar Weyne, Warta Nabadda iyo Wadajir. Waxa ayna muujinaysaa Waaberi inay lafdhabar u tahay degmooyinka gobolka. Xarunta degmada waxaa si maalinlaha ugu socda qudmeynta dadweynaha si maamulku u guto mid kamid ah waajibaadka saaran oo uu qaaday dadka degan degmada Waaberi. degmada Waaberi waxaa ka socda shaqooyin kala duwan oo heerar kala duwan maraya. kuwa dhamaadeen oo shaqooyin badan oo qabana dhamaado oo si loogu talagalay ku dhamaaday kuwa meel dhexe marayaan. Shaqada guud ee degmada aad iyo aad u fiican tahay. amniga dan ka bilaabo degmada aniga waxaan joogaa 6 bilood amniga degmada aad iyo aad u fiican yahay. wax dhacda in qof lagu dilo iyo waxaasna kama dhicin. roondan sameeyna joogto ah. tuugada waa yar tahay wax waa iska dhici karaan meesha magaalo waay laakiin tuugada iyo wixii waa yar tahay oo aad aan uga shaqeynaa roondan sameeyna wixii dhacana badan oo ka daba tagnaa. amniga waa fiican yahay arrimaha bulshada nadaafadda iyo bilicda iyo aad aan uga shaqeynaa. bariyaan coronavirus jiro waxa gaab iska jiray waa maaska macquul laakiin koorna aad aan u dargeli jirnay 2 maalin 3 maalin oo usbuuc weekly waxa jirto oo nadaafad ka shaqeyno oo laameeyda xaqno jidadka iyo wax dhan aan nadaafad ka shaqeyno. waxa kale horumarada kamid ah jidad badan aan furnay oo intaan degmada jooga oo degmada Waaberi oo jid la furi jirin oo 3 jid oo aan la mari jirin aan furnay hadda la maraa. qaarkood hadda waxaan qorsheynaynaa usbuuca soo socda gudihiisa interlock inaan dhigno oo interlock ku bilowno. shaqo fiican wadnaa shaqadu waa fiican tahay. neeyo toddobaadka xorriyadda aad aan u diyaar garooweynaa hadda la hadlayo shaqa socoto toddobaadka xorriyadda aan u diyaar garooweynaa oo nadaafad ah. meelaha qaarna waxaa ka socda in wacyigelin lagu sameeyo dadka oo leeyahay calamadii hal la xiro nalalkii hal la xiro shaqadii waa socotaa. sanadka hore gudoomiye hore Allah u naxariisto dhintana shahaado sharaf ah lagu doonsiiyay oo toddobaadka xorriyadda uu ku muteystay. degmada Waaberi waxa ay ka kooban tahay 4 waax oo kala ah Horseed, Hanti Wadaag, Oktoobar iyo 1 Maaj. dhammaan waxa ka socda u diyaar garowga toddobaadka xorriyadda oo maamulka degmada sanadkii hore ku guuleysay tartanka degmooyinka gobolka loo qabtay waxaana hadda ka socda olole nadaafadeed oo aad u ballaaran. degmada Waaberi waxay ka kooban tahay 4 waaxood waxay leedahay 2 MCH sida caadada ahayd waxaan ku jirnaa shaqooyinkii arrimaha bulshada hoos imaanayaan ku jirnaa iyadoo oo waliba isbuucan aan u diyaar garoobayno isbuuca xorriyadda aan u diyaar garoobayno. waxaan ka wadnaa degmada howlo isugu jira nadaafad nalayn iyo calamada oo lagu xusaayo 26 Juun iyo 1 Luulyo. shaqada way soconaysaa ilaa laga gaaro isbuuca xorriyadda. nadaafadda sidaan aan wadaynaa maanta waxaan ka shaqaynaynay 3 wadooyinka via Liberia via Uganda iyo via Moscow. 3daas wado shaqada si joogto uga socotaa. waxaan ka wada qayb qaadanaya waxaan u qaybinay degmada howlwadeenadeeda nadaafadda iyo maamulka waxaan isu qaybinaa 2 qayb maanta shaqaynaysaa. berri waxaan ka shaqaynaynaa wacyigelinta calamada iyo nalaynta. saa dambana waxaan ka shaqaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo waddada ototada iyo via Moscow qayb ka mida aan ka shaqayn doonaa. howlaha arrimaha bulshada degmada Waaberi si caadiyan ay u socdaan. MCH ku wuu shaqeeyaa goobihii waxbarashada way shaqeeyaan. nadaafaddii waa tan maanta aan u taagannahay annagoo u diyaar garoobayno isbuuca xorriyadda waana wadi doonaa insha Allah. waxaa shaqeeya xarumaha caafimaadka degmada ay leedahay si adeeg caafimaad oo raaligeliya loo siiyo hooyada iyo dhallaanka iyo dadka da'da ah ee degan degmada Waaberi. waxaa adeegyada caafimaad halkan u yimaada dad kor u dhaafaya 100 ruux kuwaas oo ka hela adeegyo ay ku qancaan. qoyinka ay qabtaan xarumaha waxaa ka mid ah sida hooyada oo uurka leh oo kaleeto oo muxuu ahaayeen xanaaneynteeda iyo la socodkeeda xaaladeeda caafimaad iyo si uurka markay ay qaadayso ilaa ay ka dhasho la socodkeeda caafimaad iyo muxuu ahaayay si ay u heli lahayd hooyadaas dhalmo badbaadsan oo caafimaad dhalmo nadiif ah oo dhalmo seefa si ay u heli lahayd ayay muxuu ahaayay qabtaan xarumaha. waxaa kaloo ay qabtaan oo ka mid ah waxyaabaha ay qabtaan waxaa kaloo ka mid ah in ay muxuu ahaayeen hooyada oo uur dhashay oo postnatalka inay xanaaneeyaan haddana si gooni ah haddii xaafadeeda joogto iyo haddii kaleba ay la socdaan xaaladeeda caafimaad. waxaa kaloo ay qabtaan dhanka nutritionka oo muxuu ahaayeen oo ah nafaqa darrada ilmaha ay ka daaweeyaan. dhinaca talaalka oo caruurta 5 sanad ka yar la talaaladooda si ay u helaan talaal dhameystiran si caafimaadkooda
nadiif oo u noqdo. sidoo kale waxay qabtaan dadka waaweyn oo over 5 ka liiraa ama dadka 5 sano ka weyn daaweyntooda way ay qabtaan xarumaha. waxaa kaloo ay qabtaan muxuu ahaayeen dhanka oo wacyigelinta oo kale sida naasnuujinta oo kale ay qabtaan sida oo hadda emergency-gan oo yimid oo coronavirus oo kaleeto wacyigelin ayay qabtaan. muxuu ahaa waxay kaloo qabtaan dhanka ilmaha 5 sano ka yar daaweyntoodii oo muxuu ahaa cudurrada faafo kale sida loogu daaweeyo kale way qabtaan. alxamdulillah shaqooyinkaas badan way qabtaan waana ku amaanaa insha Allah. kooxdan haweenka ah waxa ay wajahayaan xilliga uureyda waxaan halkan maalin walba ay ka kororsadaan talooyin caafimaad oo dhaqaatiirtu ay siinayaan si hooyada ugu dhibtoonin xilliga dhalmada. waxaan ka mid ahay howlwadanada ka shaqeeya xaruntan MCH-ka hooyada iyo dhallaanka waa beri halkan aniga waxaan u qaabilsanahay wacyigelinta hooyada iyo dhallaanka IVCF program barnaamij la yiraahdo u qaabilsanahay. barnaamijkan inta badan targetkiisu wuxuu weeyay 3 waxba oo kala galaa wuxuu ku qotomaa barnaamijkani hooyada uurka leh sidoo kale wuxuu ku qotomaa barnaamijkan hooyada ilmaha OTB-ga ah nafaqa darrada malnutrition-ka sidoo kale barnaamijkan wuxuu quseeyaa caruurta talaalka loo wada EBA-ga hadda ku soo qaato hooyada uurka leh waxaan inta badan wacyigelin ku siinaa hooyadu markay uurka leedahay cuntooyinkeeda inta hooyadu ka leedahay xaaladda normalka way ka duwan tahay xaalad kale galaysaa markaas oo u baahan hooyadii inay ogaato waxyaabo fara badan tusaale taymka cuntada cunayso cuntada ay cunayso markii hore inay hadda ka duwan tahay biyaha isticmaalaysa inay ka duwan tahay xaalado fara badan hooyadu ay ogaato u baahan oo markii guriga joogto hooyadii calaamado waxa jira dancer site hooyadii u baahan inay ogaato haday calaamadaas ay isku aragto kale ay xarunta caafimaadka ay timaado calaamadaas waxa kamid ah hooyada haday isku aragto dhiig bax oo kale ay xarunta timaado haday isku aragto qalal iyo waxyaabo saas ay xarunta markaas ay la soo xiriirto hooyada inta badan uur kale inay cuntooyinkii xaaladaha isku aragteen u sheegnaa waxa sidoo kale soo hoos gala oo xarunta targetkeedu yahay in ay caruurta malnutrition-ka ah ee OTB-ga xarunta lagu nafaqeeyo iyaga laftigooda aan wacyigelinayno. amniga waa kaalinta ugu weyn oo maamulku hiigsanayo in xil gooniha iska saaro waana tan sababtay in ay wada shaqayn buuxda ay yeeshaan maamulka iyo shacabka oo mararka qaar gacanta lagu soo dhigo koox dhac u geysata dadweynaha kuwaas oo mobilada ka qaata. aniga degmada waa beri taliyaha saldhig iyo gudoomiyaha gobolka ee degmada wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa aad baan u wada shaqaynaa xaaladda degmadana hadda waa balihi hadda la soo dhaafay alxamdulillah wax dhab ah iyo qalalaasa midna kama dhicin horta kiisaska ugu badan ee degmadan waa beri waa dagaal oo safeen ah way iska jirtaa mobilada la qaatay wax saas inuu dadku isku barbaqaanaan laakiin wax official oo hadda ninkaas uu iga qaaday masaas way u dhahayo oo official oo aan aragnin ma jirto laakiin inta badan awashada dadku way soo gudbiyaan waxay leeyihiin meel xaafadda maaj xalay mobile baa la iga qaatay daraad hatta waxaan aragnay mid uu dhahay soonkii ka horeeyay baa mobile la iga qaatay marka dadka hoogo waxaad moodaa inaan fahansanayna kiisaska sida oo dadka markay dhibka ay geystaan dhibanayaasha inta badan warbixintooda way la soo daahan ciidamada roondadana waa ayaga joogta mar walba inta falka ay dhicin boo daba joogaan inta badan way joogayaan marka way jirtaa waa wax oo saas oo kala ah laakiin official aan hadda madii ugu dambeysay midaan soo qabanay oo dadweynaha dhibaato u geysanayay kii hubku watay wuu araray sida uu sheegay asiga gacanta lagu soo dhigay asigeena hadda waa maxkamadan geyn waa bilba bishii u dambeyso hoos u dhac bilaanan baa jiro ani hadda muddo 8 bilood aan tali ku xigeenka hay saldhigaan kiisaska ugu badan oo aan la kulmay waa dagaal iyo maalinta ka dambeyso way si fiicnaanaysaa waxaad moodaa in hoogaha nabadda ay u badan tahay. waa beri wanaagsanow walaalihii way iswataan waa halku dhig u gaar ah dadka degan degmada waa beri. Ibraahim Xaaji Yuusuf warbaahinta gobolka Muqdisho.